الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن وذا السلام دمانتين. هدان إذن كور مرحلة جود كوفيد ودنك وحكو سكر لي صدن يشن حالات وحالب لبعتن يشن وحاددك طبعا حالتها ميلها إكل جوجان هدان دول مرنا قبل كبنادر وحاد جوج أفر لبعتن روح بونتلان وحاد جوج تسديت روح سومالي لان سدح روح dadka laga helay xaaladahaas cusub da'dooda waxay u dhaxaysaa ka yar 20 sano waxa way boqolkiiba 90 sabab saraali hada boqolkiiba 9 20 ilaa 39 inta u dhaxaysa da'da waxa way 35 boqolkiiba markii la xisaabiyo 40 ilaa 59 waxa way boqolkiiba 39 60 sano iyo ka badanna boqolkiiba waxay ka joogaan 17 tirada guud ee xaaladaha marka la isku aruuriyo Soomaaliya oo dhan waxay gaaraysaa 189 ruux dhimashada waxaa ku soo korortay hal qof halkaas qof wuxuu ku geeriyooday Puntland Ilaahay ha u naxariisto tirada guud ee dhimashada waxay isku gaaraysaa 52 ruux cudurka waxaa ka baskooday 3 qofood tirada guud ee dadka laga waayay xanuunsanaa ee laga waayay فيروس قبول لجواه وحيسو جارسة بقول يلا يكو وأكو علينا مرة والبكمة دالين إن شاء الله أن أوضع جهينو إنرجيين يو وحول بو معقول سيد عذر كان لو برتقلها رواية إن لحكمه وحلو بها بالشدة لنا عيني بسوي جيسته إن لدقيست وعي قلنت إدتك خبراء ذا التقاطيرته وأنا ذا بحنايا إن laga joogo meelaha buuqa badan in bixida la yareeyo in afka la xirto gacmaha mar walba la dhaqo meelaha ciriiriga la iska xakameeyo qofka haduu isku arko calaamadihii cudurka COVID-19 inuu wacan karo nambaradii loogu talagalay loo sheegay inay wacdaan oo freega ah si ay u helaan macluumaad zaa'id waxa jooga dad takhaatiir haya xogtiyo dhan kala talinaya wax allaala waxay sameyn lahaayeen waqtigaas ay soo wacayeen wixii ka dambeeyay waa wax laga hortagi karo cudurka waa inaan ka dhowrnaa khaasatan waajib gaar ah naga saareeyay dadka waayeelada chronic ah qabo waa inaan u turtaa qofka yani jeceshahay oo qaraabada ama saaxiibka ama familkaada qof walba waajib saaran in uu xakameeyo cudurka insha Allah ta'ala waxaan ku kala tagaynaa inaan dadaalno haddii aan dhannahay annagoo dhan sida cudurka looga hortagi lahaa oo aan raacna talooyinka nala siinayo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.